horjoogayaashii maleeshiyada khawaarijtu waxa ay bilaabeen inay duurka ka soo firxadaan iyagoo isku soo dhiibaya dowladda Soomaaliya si ay u helaan nolol ka duwan xaaladda adag ee ku haysatay deegaanada ay ku dhuumaalaysanayeen meelaha ugu badan ee horjoogayaashii maleeshiyaadka soo firxanaya ee iska soo dhiibayaan waxaa ka mid ah dowlad goboleedyada Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaana maalmihii la soo dhaafay isa soo dhiibay tobanaan u badan dhalinyaro sheegaysa inay ka yimideen fakarkii guracnaa ee khawaarijta hadduu isdhiibo oo qoroga meel dhigo waa la qabanaa waa la soo wadaa khuraafaadkii u aaminsanaan inuu meel dhigan karnaa ayadana oo iska saaro oo meel dhigo annaguna aan ku saacidno inuu iska saaro meel dhigo marka dhalinyaro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waa guulaysanay ilaahay idinkiis in yaraa noo dhiman inta yaroo noo dhimanna ilaahay idinkiis waa guulaysanaynaa guul iyo khayraan idiin rajaynaa guulaysta dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo kaashanaya shacabka xaquudirirka ah ee hubkooda qaatay si ay isaga xoreeyaan khawaarijta ayaa sii kordhiyay cadaadiska iyo culayska ay saareen deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan khawaarijta xagjirka ah oo ay ku fogaatay sidii ay u dhibaateyn lahaayeen shacabka Soomaaliyeed cabsida ay horjoogayaashii maleeshiyaadka khawaarijta ay ka qaadeen ciidamada iyo shacabka iskaashanaya ayaa ku kaliftay in ay isi soo dhiibaan waxa ayna sheegeen kuwa isi soo dhiibay inay jiraan kuwa badan oo aragtidooda oo kala qaba kuwa oo doonaya inay mar uun isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya